السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا تك سومالي مانتو حربا إنا إذن تسو فيديو كسابسان سيدا كاميرا دا أي نوع DSLR كلر كيدا وقرحو لهيت موقال كيدا marka waxaan isticmaalaynaa waxaan wax ka bedelaynaa oo kaliya maanta picture profile-ka wax la yiraahdo picture profile-ka laba si ayaan u sameynaynaa mid external aan soo download gareynayno oo dhanka computer-ka aydan ka tusayo iyo mid jiray ayaan wax ka bedeli doonaa ugu horeyn mar walba intaanan video bilaabin waxa u baahan tahay inaad iska saxdo white balance waxa la dhahayo white balance-gana waxaa ku sixi kartaa kaararkan hadda aan hayo saan u jeedaan waxaan haynayaa kaararkan ilaa gacanteedan joojinayaa 3 second oo kaliya ka bacdi ma u baahin hadhow laakiin meel dhigahaas ka tuurintaas hadhow kaas ayaan ku sixinaa laakiin hadda computer-ka ayaan ku gudbaynaa wixii kale cashirka inta dhiman computer-ka ayaan okay haddana waxaan imaanaa dhanka computer-ka waxaan tegaynaa dhanka Google-ka waxaan soo download gareynaynaa wixii noolaga baahnay number 1 hadda waxaan u baahanahay inaan soo download gareyno Google-ka ayaa waxa ku qoraysaa Canon-ka version-ka aad isticmaasha aniga 7D aan isticmaalaa marka waxaan imaanayaa meeshan kan wadanka oo waxa waaye meelo qaarkooda marka ku soo download gareysid hadii ay wadamadan Europe ama wadanka joogtid Canon-ka wadankaas ayuu ku keenayaa kan qaybta labaad aan check siinayna meeshan ayuu keenayaa page-kan cusub waxaan leenahay software-ka ayaa u baahanahay ka bacdi waxaan rabnaa leenahay qaybtan oo ku qoran tahay iOS utility kan ayaan leenahay available kaasaan dooraneynaa wuxuu ku leeyahay dooro version-ka u baahanta automatic ayuu Windows soo qabsaday download ayaa leedahay download markaa dhahdo file wuxuu ku keenayaa waa taqaanaan WinRAR dadka computer-ka isticmaalo ka bacdi extract ayaa ku sameynaysaa meeshii markaas uu ku yaala ayaa tagaysaa software-kan ayaa install leedahay aniga hadda marka waqtiga inaa idinka dilo uma baahnin waan ka gudubnay hadda waan ku soo shubay computer-kayga haddii aan soo kiciyo sidan ayuu yahay wax active ma aha marka aan kaamirada ku soo xiro fiiriyo waxa dhacaya active ayuu wada noqonayaa dhamaantooda marka wixii markaas u baahanahay ayaan ka dooranaynaa anaga marka ugu horeeyo waxaan u baahanahay qaybtan ay ku qoran hadda anaga waxaan u baahanahay qaybtan ay ku qoran tahay camera setting remote shooter kaas ayaan dooranaynaa laakiin intaanan dooranin waxaan u baahanahay inaan file-kan profile-ka inaan soo download gareysano Google-ka ayaan qonaynaa markaan ku noqono meeshan magacan ayaa ku qoraysaa si fiican ula socda waxaa la lahaa Technicolor Cine Style linkiga ugu horeeya ee saxda ah ayaa ku soo dhufanaysaa ka bacdi asigana waa soo download gareynaysaa download ayaa leedahay waa intaas oo kaliya si aan file-kan ugu shubno waxaan u baahanahay meeshan oo camera setting remote-kaas ayaan dooranaynaa markaan doorano aan hadda shaashad kale ayuu tagay laakiin waa idin tusayaa waa idin share gareynayaa meeshan ayaan taaganahay marka waxaan u baahanahay ujeedaa waxaan daay ka hadlay picture style in la dhaho marka meeshan ay ku qoran tahay register your divine style ka ku qoran tahay ayaa open leedahay kan saddexaad ee aniga ii taala marka imaatid ama kan koowaad markay ku soo baxdo meeshan calaamadana open leedahay hadda kan desktop-ka ayuu ii yaalaa open hadii aan dhaho kaliya wax weyn ma aha bis waxa leedahay okay ayaa leedahay second yar oo qaadanaya 5 second 6 second oo dhamaad hadda kuma dhanka kaamirada ayaan hadda idin wareejinayaa marka ay la socdo waa u jeedaan dhanka kaamirada meeshan waxaan tagaynaa menu ay ku qoran tahay menu ayaa taabanaysaa waxa ka raadinaysaa meesha ay ku qoran tahay picture style marka waa aniga qaybtan uu yahay Canon 70D meelaha way kala duwan yihiin laakiin 70% Canon wixii isku wada mid waay waxa leedahay user define dooranaysa kan hadda ugu hooseeya ayaan dooranayaa aniga waa ka hadda soo download gareynay marka sawir ku qaado wuxuu noqonayaa sawirka booro kale laakiin wuxuu ka caawinayaa inaa edit gareysa hadii aad video ku duubato 80% quality-ga videogaas aad ayuu u wanaagsanaanayaa waqti xaadirkan videogii bilowga arkayseen habkan ayaan ku duubaa mar walba aniga waa u jeedaan dhanka kaamirada intaas oo kaliya marka active gareysid marka hadii aan picture-ka profile-ka caadiga aan tagnana fiiriya standard-ka wuu ka duwan yahay waa u jeedaan meesha mugdi ah xoogaa sida awgeed ayuu hadii aan wax yar ku daro iftiinka oo iOS fiira hadda kan madow sax ah waay kaliya hadii inaad kan soo sameysay ee dib ku tahayne waxaa sameynaysaa meesha standard-kaaga ayaa tagaysaa kaamirada meeshan ay ku qoran tahay hoos info detail set ay ku qoran tahay ayaa dooranaysaa meeshan sharpness-ka 0 ayaa ka dhigaysaa meeshaas ayaa tagaysaa 0 ayaa ka dhigaysaa qaybtan contrast-ka -1 ayaa ka dhigaysaa saturation-ka waxaa ka dhigaysaa +1 color tone-kana hal ayaa ka dhigaysaa marka wuxuu ka caawinayaa kaasina
inaadan sawirka wax badan time ku dhuminin oo colorkiisa meel walba tagtid wuxuu qaadanaa 85% quality-giisa uu ku qurux badnaanayaa. marka waxaan rajeynayaa videogan inaad ka heshaan wixii macnaha kalena waa isla wadaagi doonaa. video xiga ayaan ka soo sameynayaa. mar walba dadka 90% kaamirooyinka markay soo gataan waxaa laga yaabaa sanado inay iska haystaan, taas in dad badan oo dadka professional kaamirada waxyaabo qaldan ku arkaan shirkadda u sheegaan oo update laga soo sameeyo. marka sidaas darteeda qofkii yaqaano firmware-ka waxa la dhahay update ha ku sameeyo. haddii kale aysan ahayn asigana video kale ee dhanka kaamirada ayaan ka soo sameyn doonaa sida firmware aan dhahay update loogu sameeyo software-ka kaamirada maskaxdeeda ku jiro. waxaan isla soo gabagabeynay sida aan picture profile-keena wax uga bedeli lahayn. haddii aad videogan ka heshay fadlan asxaabtaada la wadaag. haddii aad page-keena aadan hore subscribe u dhihin subscribe dheh. waana ku mahadsantahay daawashadaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.